marka aad joogtid Soomaaliya dadka aragga naafada ka ah waa kuwa caqabadaha ugu badan kala kulma bulshada dhexdeeda tani waa sheekada lamaane aragga naafada ka ah oo ku wada nool gurigan iga dambeeya Compose message edit box. Tiknoolajiyada casriga ah ayaa u fududeysay iyagoo aragga naafada ka ah kuna kala sugan laba wadan inay nolosha wadaagaan lamaanahan qaba baahiyaha gaarka ah Abshira Xasan Xuseen iyo Nuur Sheebow Cabdi waxay hadda ku nool yihiin magaalada Muqdisho waxaana u joogta 3 caruur ah walow ay jirta caqabado ay kala kulmeen bulshada Soomaaliyeed Abshira ayaa inooga sheekaysay guurkeeda kadib caqabadaha ay la kulmeen iyada iyo saygeeda iyo baahiyaha hadda ay qabaan waxa iska guursanay wiilkan WhatsApp group aan iska baranay oo dadka aragga ay ku midaysan yihiin dadka bulshada waxay su'aalaha ay ku weydiinayaan waxa kamid ah oo aragga maxaa la dhahay labadiina aragga see macnaha isu guursadeen dad qaar ah iska soo jarayaan laba qof oo aragga maxaa la isku daray marka hore adoo macnaha tusaalahan caawinaad u baahan ku arkayaan waxay su'aal keenaa maxaa la isku keen daray labadiina dhankiisa Nuur Sheebow Cabdi ayaa inoo sheegay in qoyskiisa aysan raali ka ahayn guurka xaaskiisa gabadhan xiriirka leenahay hatta waan qarin jiray waxa yeelay ma ogolo in lagu qof alxamdulillah fi isguursadan kulli Soomaaliya ogtiin badna ma ogolo kadib dadkii waxay ogaadeen markii gabadhan aqal galnay dadkii qaraabada familkii ay ogaadeen markay ogaadeen ilaa hadda la joogo dad baa saasta oo intaas darteed yaa hadda buliya kala go'nahay maxaa oo kunyin dad badan abna weydiiyay anaga xariiq qoyti joog anaga joog dhorna qof nu weydiin markii wiilkay ugu horeeyay Maxamed uu dhashay halkan ku dhashay Muqdisho way soo laabteen xarooyinka imaadeen dadab marka yaa bano imaadeen soo baadi macna daawasho noo imaadeen waxay leeyihiin dadkan soo way ilmuhun bal kulay ayaan dhaleeymiya bal ma aragteen waa la soo weydiyaa Titoreysa Saamiya Xirsi Cali oo ah dhakhtarad ku takhasustay daaweynta indhaha ayaan wax ka weydiinay xaaladaha caafimaad ee ka dhalan kara caruurta ay dhalaan haddii ay isguursadaan laba qof oo aragga la saameynta ee indhaha ku yeelan karaan caruurta waalidiintooda ka dhaxli karaan way kala duwan tahay waxayna ku xiran tahay wixii keenay indhoolnimada waalidku keenay ka soo qaad haddii uu waalidka uga imaaday cudur hidde-side midkood mise labada mid ay qabaan caruurtooda wuxuu noqon karaa inay saameyntaas yeeshaan sida Soomaaliyeed u yaqaan cudurka hamaamisooda gulukoomada iyo cudur kale oo waxa jirto waalidiinta ku keeni kara indhoolnimo caruurtoodana ay ka dhaxli karaan